dhaqaalaheena inaynu dhowraa nolosheenu ku dhisantee nolosheenu ku dhisantee nolosheenu ku dhisantee. waa mar kale iyo barnaamijkeena dhaqaalaha iyo ganacsiga. toddobaadkanna barnaamijkeena dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaynu ku soo qaadan doonaa qodob muhiima oo ka hadlaya ganacsiga qaybta ay kaga jiraan goobaha qalabka dhismuhu. markaynu ka hadlayno goobaha ama meelaha inta badan lagu iibiyo ama lagu sameeyo qalabka dhismuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha la odhan karayo waxay qayb ka qaataan horumarinta iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu dal leeyahay. toddobaadkan waxaan barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ku soo marti qaaday shirkadda albarako. albarako waxay ka mid tahay goobaha ama xarunta qalabka dhismaha. maxamed ismaaciil axmed waa mulkiilaha albarako. maxamed kusoo dhawo barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga. bismillahi raxmaan raxiim. waan ku dhoweeyey xasan, aad bay mahadsan tahay booqashaad nagu soo booqateen xarunta meheradana aad bay mahadsantihiin. marka ugu horeysa bal waxaan jeclaan lahaa ganacsigaagu waxa uu yahay bal inaad bulshada usoo bandhigto. runtii xasan, horta ganacsigu wuu badan yahay oo dalkeena noocyo badan baa la keenaa. ganacsigan hadda aynu dhex fadhino waa qalabka loo yaqaano materialka oo weliba qaybta birta ah weeye. runtii dee warshadana ma lihin oo dalkeena laguma sameeyo, laakiinse waa ganacsiyada dibadda laga keeno ayuunbuu ka mid yahay oo dalka loo soo dhoofiyo. waxaanu kaga duwan yahay runtii ganacsiyada kale waa shaqo gacanta laga qabto oo qof xirfadlii uu qaban karo uun marka lasii farsameynayo. oo adiga arkayo waxaa dee ku dhisan dalkoo dhammi marka dhagaxa iyo dhoobada iyo sawirka laga yimaado iyo looxa birtaa soo raacda wuxuunbaa ka shaqayn kara uun qof farsamo yaqaana. marka taasina waxay fursado badan siinaysaa dadkii farsamada gacanta baranayay in iyaguna ay kasii faa'iidaystaan oo qofku uu furan karo meel lagu sameeyo albaabada, geedharhka, deyrarkan oo toolka lagu wareejiyo guryaha iyo qofku furan karaa. oo laakiin waana shaqo ku xidhan qofka xirfadiisa. uma baahna iyadu inay tahay shaqadan gacanta laga qabtaa qof walba inuu geli karo maaha. waa qof gacanta ka samayn kara baa sii samaysan kara. waana ta keliya kaga duwan tahay ganacsiyada kale. waxaa laga yaaba ganacsiyada kale inuu qofku iska furto meherdiisa ka dhex fadhiyo oo qof walba iibin karayo. laakiin tan waxay u baahantay markaad bakhaar ka soo iibsato matalan naga sii iibsado oo meel goobtiisa geysto inuu googooyo mitiryo cabiro. waana shaqo ugu adag runtii oo cabir bay ku xidhan tahay, senti bay ku xidhan tahay. oo qofku markuu kaa dalbado albaabkan uu doonayo waanaad cabirtaa, iskama dhigayso kuma dhejinaysidu. marka waa ganacsiga keliya kaga duwan ganacsiyada kale dhinaca farsamada gacanta. markaa muddo inta leeg baad kusoo dhex jirtay? runtii xasanoo kolley markii hore anagu waxaan ahayn dadkii suuqa deganaa waa ahayn halkii gubatay. xaggan imanka waxaan joognaa oon degannahay muddo ilaa 6 bilood 5 bilood meelahaas ayaan deganay. way kala duwantahay farsamadan kuu sheegay gacanta iyo inaad wixii adigu keentad iibiso way kala duwantahay. qofka ku xidhantahay farsamada gacanta waa qofka sii farsameynaya, mitirinaya, cabiraya, albaab ka sameynaya, deyr ka sameynaya, ganjeel ka sameynaya weekaas. laakiin tan iyo ta kale qofka iibinaya mar walba iibin bay ku xidhantahay markay jumlo tahay amba aanay iyadoo u baahnayn googoynteedii. marka anigu saas kala duwan yihiin. dhinacna waxay iska shabahaan ganacsiga caadiga in la iibinayo, dhinaca kalena waxay iska shabahaan waxay kaga duwan tahay waa mar kale wejiga labaad iminka shaygan laga qaaday ka la geeyo goobta farsamada gacanta la geeyo ayay u baahan in materiyo. marka taas anaga waa naga baxsanta waa qolada farsamo yaqaanada. anigu tan kale iyo noocan isugu taalumaan keena anigu. muddo badan baad kusoo dhex jirtay ganacsiga. goobtan oo kaliya maahan ganacsigaagu, ganacsiyo badan baad soo martay. bal ka waran ganacsiyadaas soo martay say u kala duwanaayeen? horta ganacsiga waxaan ku soo biiray markii hore anoo yar 2007 ayaan ku soo biiray ilaa iminkana waa had meel aan joogo waan ku dhex jirnaa. marka waqtiyadan ku soo biiray 2007 bay ahayd, maantana waa 2022 waa muddo 12 sano ah. marka ganacsiga hore waxaa cosmetics wax loo yaqaano barfuumiska, cadarada, gariimada, suuqi gubtay buu ahaa oo muddo 12 sano hore aan xagga joogay 60 bilood marka laga jaro. marka wareegii xagga aan joogay hore waxa ii xigay kanimaka oo wejigan labaada. markaasina weji gooni ahaa kana weji gooniya. marka shaqo walba qofka waxa ku xidhan tahay maskaxdiisa, soo jeeska, attentionkiisa ma ku xidhan tahay. ma shaqadu ma kala laha xataa dad gacanta ka shaqeynayso. kalsooni waa number 1, maskaxdaadu soo jeedo waa number 2, inaad hamil leedahay waxaan doonayso oo adigu aad danaynayso waa number 3. marka haddii qofku soo jeedo maskaxdiisa uu soo jeedo waxaan aaminsanay wax suurtaaga ma jirto. marka su'aashu waxay u dhigan tahay sidee ula qabsan kartaa bay noqon kartaa. marka taasina wax bay ku xidhan tahay in soo jeedka iyo hamada qof. marka hadaad ku tala gasho inaan maanta xirfadda urinimada ku shaqeeyo oo inaan marka hore go'aan soo qaato, marka dambena soo bartaa, kadib inaan ku shaqo galaa. haddii laakiin aan garanayo oo soo rogi karahayna hadalkeedii amba warbixinteedii waxba ma yafcamale. marka waxay ku kala duwantahay ma jirto. maxaa la odhan karayaa maanta suuqa ganacsiga Soomaaliland maanta halku marayo?
wallaahi horta xasano horta suuqa ganacsiga Somaliland adduunyadan kala sameynahay horta xagga sixir bararka oo inagu de wax manufacture ma lihin waxba ma soo saarno oo production ma lihin sideennaba hase ahaatee guud ahaan horta saameynta sixir bararka adduunkanu kala midnahay oo waxaynuna 90% waa wax la keeno waxaan ugu dhoofino ama soo saarna maaha marka sixir bararku wuu jiraa deynagana waxa baan soo raacay runtii abaare iyo suuqa u weynaayo Somaliland oo gubtay oo runtii de anigu suuqii aan ku soo koray ahaa oon aad iyo aadna runtii aan uga murugeysanahay khasaaraha ku yimi inkastoo dee wax masiibo rabaaniga tahay oo cidina aanay baajin karin haddana shay kastoo ku soo mara duruus baa laga bartaa maanta waxaa laga yaabaa kolley dee dhaqaalihiina halku waa 2 bilyan wax ka badan baa lagu qiimeeyey hantidii taalay oo ma keliya degtay waxaan filayaa geeska Afrika inaanay weli mar qura intaas in leeg aanay ka digin innaga laakiin waa wadan dee islaama oo caqdidiisu taam tahay kii uu ka gubtay iyo kii aanu ka gubanay isku imaan yihiin oo runtii markay hadlayeen qoladii ganacsatada suuqa deganaa ay kelmadda ku hadlayaan ilaahay keenay baa qaatay oo hadal gabagaba iyo awal oo aakhira ayuu ahaa runtii waxyaabaha keeni kara inay dee 2 bilyan wax ku dhawey mar qura degaan waxay ka mid tahay runtii waxyaabaha aanu sababeynayo مسؤولينta suuqa degan iyo dadka meheradaha lahaa waanan qodobeynaya runtii xasan oo qodobka koobaad qofku markuu meherad leeyahay amba suuq la degan yahay dadku waa isku dan suuq marka la degan yahay suuqu wuxuu leeyahay qaab buu leeyahay wadooyin marka hore u baahan yahay marka hore asalkiisa wadooyin buu u baahan yahay suuqana la iskama dhisin marka hore amba dawladana haata amba dawladii adduunka ugu horeeyay soo mar dalka haatee qaab baa loo dhisay wadooyin uu leeyahay hadii la suuq wadooyin ma laha waa been weey wadooyin uu leeyahay suuq laakiin waa la xiray waa caqabad hortii koobaad oo dad suuq dad baa wadooyinka xiray talabaadna waxay ahayd dadka suuqa degani waa la kala hanti badan ninka 500 maanta meherad u taaliyo ninka 200 meherad u taalo iyo ninka kaariyoon laha amba bagaashka yar iibinaya kaariyoonkiisa 2 saaranta buu saaray yahay wadada degani xasan isku hanti ma isku badbaadana ma si ka ilaa ka hoose ilaa ka sare loo badbaado waxna loo wada cuno waxay ahayd inay farsamaystaan oo wadooyin barnaystaan dariiquna sidiisa waa wax dadku wada leeyihiin cid gooni lahayn oo mushtarak حق مشترك وين تدخل ولا قف قولي كمدي كروران كموران كان حسني قف كنا حق بولي إنه وضد مرة إن وصل مرة لو بنين حق بولي عموما إنه وضد بنايستان حق بيقول هاي ويقول الدولة دنا لك عشان الدولة توصل لك عشان إن بدنا والجوع العلي مركا إن العقل هم منين نقلنته مروح عوض الآن بتشتهرت الشيء قلنا إذا كان عصدي أركاسي جوتي مركا اللي جاي مع الدوين كا حنتي ده ماشى تعلي واحد شري رك بدن أما ضد بدن ورنتي ماشى كان عصيب بدن كلها ما قبض بدن كلها ما أنتنا حبان كهين محل وران كريا iyaga waxyaabaha suurta galiyay in hantidooda baba runtii tii horma daba socotaayo qodob kalena waa jira xasano adduunka lama joogo de casrigii hore lama joogo qofku markuu hanti leeyahay hantidu waa laba nooc waa shaygan nool iyo moodkan weeyaan qofku markuu lacag haysto suuqu degan oo waliba ka taxadar badan yahay de waxa loo baahan yahay qofku wixii mood u haysto inuu akoon dhigto wixii de meherad yaala weeyala marka keentay iskaba raacay qodobka labaad waxa weey hantidii moodkii noolka meesha weeyala dadka lacagta cadaan meesha taal qofku haduu lacagta uu akoon soo dhigan lahaa wuxuu u kala hadhi lahaa inkasta ha noqotay noolku guban lahayo daalabta matila ku guban lahayd moodkii oo de lacag oo de waxay ku jiri lahaa akoonka wuxuu u kala hadhi lahaa marka waxa keenay inay israacaan wixii meel buu wada yaalay meeshana masbada dabka ku wada hashay qodob saddexaabo waxa iyadoo kala keenaysa qofku 6 meherad buu leeyahay 6 meherad ku buu ku iibiyo isku meel loo ku yaala dadana qaar ba isku xigaba taasina waxa waa waxyaabaha khibrad la'aanta ka mid qofka duusan meherad leeyahay 2 meherad ku soo ururiyo saddex kale lacagtooda labadan ha ku camiro oo ku hagaajiyo oo ugu shaqeeyo oo wixiina ha kala habayo laakiin hadduu isku meel ku iibiyo musiibo mastan ka badan baa dhici kartaba mar kastaba dabcan adigu waxaad imika sheegtay inaad ka mid ahayd dadkii suuqaasi gubtay oo waxay ku soo koray marka ma meherad baad ku lahayd ma dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay baad ka mid ahayd balka waran xasan runtii ma ku soo koray suuq wuxuu aan ganacsi ka soo bartay ilaa aan 6 bilood ma ka soo maqnaan anigu de maran meherad mas'uul ka ahaa maran shaqaale ka ahaa intaba way lahayd marka suuqa marxalad dhowra ayaan ku soo maray suuq wuxuu aan lambar 1 suuqan shaqada ku bartay lambar 2 suuqii aan heerka ku soo gaaray buu ahaa lambar 3 suuqii aan ku soo koray buu ahaa aanoo yar aanimi lambar 4 suuqii horumarkan ka soo bilaabay ayuu ahaa marka runtii markaan leeyahay ganacsatadu inay hagaajiyaan waa muhiim لحجالهم بان رنتي إجا هيسون سليه أنتي جوجو تاني ما يشيرين أو لحدا بلون قصة مغنى دب كنا دايما كلا بلون كهرم بوها أنت هذا السوق جبان كهر أيات كسر قرتمية كسوريك ها تسوق جبان أيان كسوريك أو تاني مخاد قرتمية أيان إمي واحد كهر أنت إن بالمانتا وحيابها هيست عقبتها إنها هيستا إن جنسك السومال لما كانوا كهلا إنه
ganacsiga sidoo doonaba ama ganacsi guud ha noqdo ama ganacsi dhex ha noqdo ama mid hoose ha noqdo ganacsigeena caqabadaha maanta haysta maxaa kamid ah xasano runtii ganacsigeena waxa haysta laba caqabadood baa haystaan isla runtii caqabada koobaad waa sixir barar oo qofku shaygu uu keeni lahaa ama uu iibin lahaa waxa isleegaanaya lacagtu gelinayo iyo lacagta lagu cashuurayo waxa isleegaanaya talabada gudaha uu kiibsanayo lacagta laga siinayo iyo tusiisiin doono marka asaga wax different ugu jira ma jirto waxaan kaloo ka xusi karaa runtii ganacsigu haddii la ballaadhiyo oo imika 2 milyanka goobta kaliya wada yaallay 8 degme Hargeysa haddii loo qaybin lahaa oo la kala fudeedin lahaa may ahaateen waxaas oo dhamay dhaceen 2 milyanka haddii milyan meesha ooli lahaa milyan oo fiirsanaan lahaa wax badan badbaadi lahaa waa caqabad qudheedu runteeda ah in suuq qura la aamino labada suuq Hargeysa waa iska macruuf waa haan iyo gobonimo labadaasi wax ay qaadi karaan ma jirto ilaa buurta kala taxan ilaa iyo laga soo bilaabo halaya agteeda inta u dhaxaysa bariga gabadha marka la eego haddii inta loo qaybin lahaa oo degmo kastaba la camiri lahaa ganacsigu uu fidi lahaa danyartu ka faa'iideysan lahaa waxyaaban baa jabi lahaa ganacsato yar baa soo bixi lahaa oo meel walba oo guryo jaban bixi laga geli lahaayeen dukaamo waxay heli lahaayeen dee iska wax yar u camiri lahaayeen noloshooda ku maareyn lahaayeen laakiin markay noqoto in suuq galo suuqii lacag badan baa laga rabaa guriga deebaaj badan baa laga rabaa dhaqaale badan buu ka doonaya awoodda uma hayo hunguri baa ka haya hami buu leeyahay intaaba uu leeyahay intaas laakiin waxa ku soo ururtay inuu meel qura u yeesho ma aaminsana xaafadu ka soo tooso hadduu wado meel kasta laami marto madana way joogtaa xaafadaha soo dhacay 8 degme Hargeysa xaafadu ka soo dhacaan adeegay u soo doonanayaan labada suuq waaweyn ee Hargeysa haddii xaafadooda loogu geyn lahaa wax badan baa kala fududaan lahaa aynu ku dhaamo dhismaha dalkeena aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed ismaaciil axmed oo ah mulkiilaha shirkadda qalabka dhismaha ee albarako oo barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ku soo marti qaaday barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanay ganacsiga qaybta ay kaga jiraan goobaha qalabka dhismuhuna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkan dhigiisa intaan ku kulmino iyo anigoo xasan xarbiyo idiga tegaya nabaday dhaqaalaheena inaynu dhowraa nolosheenu ku dhisantee nolosheenu ku dhisantee nolosheenu ku dhisantee